قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. واجم من الفرح الذي غطاه حتى أبكما، حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما، قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. وجم من الفرح الذي غطاه حتى أبكما، حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء، يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. وكان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما، بالحب فيضا دافئا مسترسلا بعد الظما. يعني علماء لا soo saarayaan barnaamijka meesha waxa weeyaan culimo aad ku soo baxdaan oo aad noqotaan dadka anfacaysa maaha marka inay wixii ka yani u weelay qofku si fiican u xifdiyo oo ilaaliyo aad iyo aadna loo ilaaliyo yani xadiidka labada dhinac matnigiisa iyo sanadkiisa soo saas maaha ma sha Allah Allah idan barakeeyo ay maada kala soo gabagabeynay jimcada oo diyaar asho maada kala noo dara xadiidka maxay ya سيرة وادي تاع سيرة اللي نمديه أضاف عطاية منظومات صح ما شاء الله يا الشيخ السويدي شيخ الدكتور هو شيخ غيري وهو يصبري إلى هذا معاني ليه هاي وحرتي سن كمل هاي وأنا كوبو قاعدين إن هذا الشغل وعنه لين هايو الدين تروح لبرقة أمي يوصل الدين إن شاء الله تعالى نقدر نستعين كما نقدر نستعيننا نتاكلين إن شاء الله تعالى يدين لنا الدلاشان فأمي يوصل قف أقام له إن عم نقطه وحكى له غير إن عم نقطه قف يعني حق إدب تكديسا قف كمان كو إدب لي هاي أو إدب تيسي ونكسنت هاي فإن بدون وكان في بدين هاي qofka aqoonta leh aan edebta lahayn soo saas maaha qofka ragana daa'iman haddana dee edebta iyo anshaxa aad bay ula xigtaa hadhow markaa gaartaan insha allahu tacaala oo guur liidiin doonayo gabar liidiin doonayo nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi idaa ataakum miman tardawna diinahu wa khuluqah diin iyo akhlaaqa lisraaciye hadhow diintana waa lagaa fiirini akhlaaqdaadana gaar baa loo fiirina marka inaad noqotaan dad yani mutaadibiin ku edebsan akhlaaqda wanaagsan fiican haysto qiyaamahana waxa qofka aad u anfici doono akhlaaqda wanaagsan weeyaan marka aqoonta iyo akhlaaqda isku wada akhlaaqda ugu weynna waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga edebsado oo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku faray inaad la timaado wuxuu kaa reebana ka reebtoonaad macallimiinta aad loo ixtiraamo saas maaha qofka xaraf ku baray xaraf qofka ku baray macnaha waa kala qiimo badan yahay wax walba wax kale qofku siiyay waxa kala qiimo badan qofka xaraf ku baray aad iyo aad loo ixtiraamo macallinka isku taagin
dhexdiinana cilmi badan baa ku jira waa la kala faa'iidaa waxyaalaha wax lagu barto waxaa weeyaan in aad intaa isku tagtaan aad muraajacaad samaysaan oo isla fadhiisataan qofka kale waxa ku jira uu ka barto taasna waxay u baahan tahay edeb iyo xusnu mucaamala in si fiican macnaha aan la isdagaalin la isku qaylinin qofkii qof kale ka gardarnaada la iscafiyo in badan saa la iskugu dulqaato marka jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo waa idin soo salaamay waana insha allahu tacaala markas waa markaskeeni sheekhana waa sheekheeni isku sheekh baynu nahay isku sanad baynu nahay marka ilaahay subxaana wa tacaala inoo kaalmeeyo cilmiga ilaahay idiin fududeeyo idinkana dadaalkaas baa idinka ogni insha allahu tacaala aad baa umahadsantihin jimco weeyaan xilli dambaan idin imaaday marka jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وآله وصحبه الأبرار الحيز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدهن ويكشف الحقائق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد وترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها سهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ونية الشرع لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في دربها والدار للقبائح إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد شرع من أصول التيسير في كل أمر نابه التعسير وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة أصل في الأبواع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحلم فثم ذاك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الصارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور من مسائل الأحكام في التباع إذ قلت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد القضاء والإكرام والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن وينتقي التقديم عنه والزلل من مسائل الأحكام في التباع إذ قلت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا وراء حكم من الشرع الشريف لم يعاد العادل المعظوم قبل آنه قد باع بالخسران مع إيمانه وإن التحريم في النفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن والنكرة فيه ويفيد كل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم ونكرة في سياق النفس تغني العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيد معا كل العموم يا أخي فاسمعا